wuxuu ahaa siyaasi halgamaa xorriyad u dirir iyo aqoon-yahan. waxa uu ku dhashay magaalada Ceergaabe ee xarunta gobolka Sanaag. wuxuu hogaaminayay halgankii dib loogu soo celinayay dhulkii Soomaalida ee Ingiriisku xabashada siiyay. maanta ayaa markii uu dhintay waxa dhac iyo boob lagu geysanaya magaalada Muqdisho ubadkiisii. haddaba inteenaanu gelin taariikhdiisa oo aynu soo koobi doono aynu isdul taagno dhacdo soo cusboonaatay oo Muqdisho ka dhacday oo lagu dulminayo ubadkii uu dhalay Michael Mariano. wasiir hore xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa bartiisa Facebook ku qoray qoraalkani. 3 bilood ka hor waxa la ogaaday in niman hantiilayaal ahi iyo ganacsato waaweyn ahi ay dhacayaan gurigii ilmo Michael Mariano oo dadkii hayayna ay ka eriyeen. madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh ayaa arrintii la gaarsiiyay, waxaana la sheegay in madaxweynuhu uu la hadlay raggii dhulka boobayay oo uu ku yiri aniga oo jooga guriga ilmo Michael Mariano dhici maysaane faraha ka qaada. maanta waxa la sheegay inaanay ka harin boobkii dhulka oo ay bilaabeen in ay balool uga iibiyeen dad ay heshiis ku yihiin boobka dhulka si loogu wareero badbaadinta hantidani. Michael Mariano inkasta oo aanu dhinaca diinta ku caqiido ahayn shacabka Soomaaliyeed, waxa uu ahaa muwaadin halgamaa iyo hogaamiye baal dahab ah ka galay hormuudna ka ahaa raadinta shantii Soomaaliya iyo sidii labada gobol ee xoroobay waa koonfurtii Soomaaliya iyo Somaliland xornimada uga qaadan lahaayeen Talyaaniga iyo Ingiriiska. wuxuu noqday wasiir iyo ambassador shaqo fiican dalka u qabtay. waxa taariikhdiisa dhawaan wax yar ka xusay General Galaal Allah u naxariiste. waa damiir xumo iyo gunnimo weyn haddii maanta carruurtii ilmo Michael Mariano xoog loo sheeganayo oo guryahoodii laga dhacayo. madaxweynaha jamhuuriyadda, ra'iisul wasaaraha iyo bahda dhaqanka ee iimaanku hormuudka u yahay waxaanu ka codsanaynaa in ficilkaasi bahalnimada ahi ay joojiyaan. taariikhda Michael Mariano oo kooban. Michael Mariano waxa uu ahaa siyaasi halgamaa xorriyad u dirir iyo aqoon-yahan. waxa uu qabiil ahaan ka soo jeeday beelaha Isaaq habar jeclo, gaar ahaan beesha Abdiraxmaan Muuse Abakor. waxa uu ku dhashay magaalada Ceergaabe ee xarunta gobolka Sanaag. waxa uu dhashay sanadkii 1914 waxa uuna dhintay 1986. Michael Mariano waxa uu ahaa siyaasiga kaliya ee ka madax bannaanaa qabiil. waxa uu ahaa nin wadaniyadda Soomaalinimadu ku dheer tahay. waxa uu ka soo shaqeeyay 4 ka mid ah shantii Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin NFD, Soomaaliya, South Reserve Area iyo Somaliland. Michael Mariano isaga ayaa gacantiisa ku qoray qoraalkii ay SYL u dhiibtay 4tii quwadood ee Muqdisho yimi January 1948 si ay u ogaadaan una fahmaan waxa ay Soomaalidu doonayaan. qoraalkaasi oo 4 quwadood ka codsanayay in la mideeyo 4tii Soomaaliyeed ee markaas Ingiriisku gacanta ku hayay, waana 4 aan xagga sare ku soo xusnay. Michael waxa uu hogaaminayay halgankii dib loogu soo celinayay dhulkii Soomaalida ee Ingiriisku xabashida siiyay. waftigiisii oo ka koobnaa Dubbe Cali Yare oo isna isku reer ahaayeen Michael Mariano iyo 2 suldaan oo kala ahaa suldaankii guud ee beelaha Harti iyo suldaankii beelaha Samaroon. lugtii ugu horeysay waxay tageen Muqdisho iyo xisbiga SYL, halka lugtii labaadna ay ka degeen London, halkaasi oo ay dood adag kula yeesheen dawladda Ingiriiska. 1948 isagoo saxaafadda Ingiriiska kula hadlaya London, Michael Mariano waxa uu yiri ficilkaas Ingiriisku qaatay waxa uu Soomaalida ka dhigaya dad guryahooda marti ku ah. Michael iyo waftigiisii waxay uga sii gudbeen dhankaasi iyo New York iyaga oo doonayay inay qadiyadooda ay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa u gudbiyaan. laakiin nasiib darro hal wadan oo taageeray ma uusan jirin. Masar ayay isku haleynayeen iyana maysan taageerin. intaas waxaan ku soo koobi doonaa taariikhda Michael Mariano oo baal dahab ah ka galay kaalintii Soomaaliya iyo xornimo u dirirkii Soomaalida.